waayahay maayer cabdishakuur maxamuud xasan cidin xisbiga mucaaridka wicid waxay sheegeen in xildhibaanadii golaha deegaanka ka soo baxay xisbiga mucaaridka maayer ama ahada ama xildhibaan ahaado in bedelkiisii ee ku biiro kulmiye in bedelkiisii ay maxay ahayd samaynayaanoo ay sharciga u raacayaan ka maayer ahaan oo aad weliba cudi ka soo baxday arrintaasi maxaad ka horreeyay bismillahi raxmaan raxiim abeen aseen calaa umur dunya wadii marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad idinkana aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxay muujinaysaa biseelka waryanimo iyo xuquuqda saxaafadda uu ku leeyahay qofka muwaadinka marka dhinac aragto iyo dhinaca kale la rato aad baan idinka mahad celinayaa golayaasha deegaanka waxaa lagu qabtay doorasho 2013 sidaan maalintii horeba u caddeeyey doorashadeedii waxa ay ku gabagabaysan tahay sanadkan iminka aynu ku jirno bilaha soo socda bisha 11aad minis waqtigeegiiba waa dhammaad weeyaan marka waxaan ka soo baxay 147 musharax ayaan ka soo dhex baxay haddana 22 musharax baa ay doortay maayer waxaan ka soo baxay xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee ucid baan ka soo baxay niyo ucid iminkana saan hore caddeynay mar labaad caddeynay mar saddexaad caddeynay maadaama waqtigiiba gabagaba yahay sida shuruucda dalku ay dhigayso waxaanu cududayeedii iyo taageeradayadii baanu ku buuxinay xisbiga talada haya ee kulmiye oo runtii aan u bogay anugu siyaasiyan anigoo markii hore fikir khaldan aaminsanaa inaanan waabas ka soo sharaxi lahaa haddaan moodayo iyagaa bay beryayey maadaama bulshadiina wax u qabtay himaladeeduna hayna wax u qabto weliba iminkana aan ku niyad samahay inuu waqtigeyga dhammaado aan waxqabadkayga sidaa u daadihinaya markaa waxaan ka taaganahay uun dee hadday yidhaahdeen shuruucda dalka loo maraya dalkeenu waa dal jira waa qaran isan bay nahay shuruuc baynu leenahay shuruucda dalka umaynu wada sugaynaa hadduu xilkii xasaanadda naga qaadana dee waxaan diyaar u nahay inaanu adeecno ixtiraamno shuruucda dalka u taalla haddii kalena waanu sheegaynaa waanu ku celinaynaa wixii aan cudud iyo xoog iyo taageero iyo doorasho aanu haynayba waxaan ku biirinaynaa aan hore noogu sheegnay ku biirinaynaa xisbiga talada haya kulmiye marka laga yimaado waxa sharciga dalka uu qabo bilaad qof maayer aad tahay sharciga dalka waad garanaysaa sharciga isbiga waad garanaysaa waxay sheegeen in sharciyada dalku uu dhigayo uu ogolaanayo in iyagu ay bedeshaan sharci sax ma adan ku gaarsiiso waxa horta dee xisbiyadu iyagu selection kuma laho mar magacaabaan golayaasha deegaanka midna markay doonaan kanaa naadeec waaye kanaanu geenaynaa ma yidhaahdaan waa institution dhan oo system aan ku shaqeyno weeyaanu dalku leeyahay marka xubinta golo degaan ama ha ahaado maayer ama ha ahaado xubin golo degaan ha ahaadee wuxuu leeyahay nidaam sharciyo loo soo maro marka haddii nidaamkii sharciyaha soo maraan hay-adaha sharciga dalka u yaallaa siday ku taliyaan bay noqonaysaa un wixii nidaam sharciya waan aqbalnaa diyaar baanu nahay